iminkana waxaan jecelahay inaan khadka telefoonka si toos ah ugula xiriiro wariyahayaga magaalada Jowhar oo isaguna noo soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Jowhar. Alfa ma maqlaysaa? waan ku maqlaa maxamed bal waxaad noo soo koobtaa wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda maamul goboleedka Hirshabeelle ee la sheegayo in madaxweynayaal laba ahi ay ku hirdamayaan saacadii ugu dambeeyay magaalada Jowhar. aada ma santahay haddii aan ku guda galo habeennimadii xalay waxaa lagu dhawaaqay gudoomiye cusub ay magacaabeen garabka ay taageerayay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble markii loo dhaariyay saakay markii waaga uu baryay ayaa waxaa dhacday haddana in xildhibaanada taageersan madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble in ay xilki ka qaadeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. waxaa la sheegay in gudoomiyaashii xalay loo dhaariyay xilka ee taageersanaa madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble in ay la soo safteen madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyaga oo sheegay in ay hadda xaqiiqda ogaadeen aysan Cali Cabdullaahi Cusuble oo xilka laga qaaday. marka xaaladda xiisadeed ee magaalada Jowhar taagan ayaa ah mid aad u kacsan. madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa isagana sheeganaya in sida looga qaadayo sharci daro ay tahay. waxaa kale uu sheegayaa ilaa iyo xaaladda ay dowladda federaalka Soomaaliya kasoo gasho in ay joogsan doonin maalinta kasii dambeysa xiisada ay cirka isku sii shareeri doonto ayuu sheegay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. mideeda kale maxamed ma jiraan ilaa iyo hadda madaxweynayaasha midna xilaleeyahay xilkii baa laga qaaday midna waa la magacaabay mid hadlay oo warbaahinta la hadlay ilaa hadda ma jiro mid warbaahinta la hadlay. laakiin maanta magaalada Jowhar ayaa waxaa lagu doortay guddiga doorashooyinka garabka gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta waxa uu doortay guddi 9 xubnood ka kooban 30 bari oo kusiisimaha yahay Cali Guudlaawe ayaa waxaa loo doortay in ay soo doortaan madaxweyne. iyadoo hadda la sheegayo magaalada Muqdisho musharaxiin fara badan ay iska soo sharaxday u soo socda magaalada Jowhar oo jagada madaxweynaha iyaguna u socdaan oo talada madaxweynaha u socda. guddi 9 xubnood ka kooban ayuu maanta magacaabay iyadoo uu diidan yahay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble in xilka laga qaado oo sheegay in si sharci daro ay tahay. qaar kale oo ka tirsan oo taabacsanaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa ay ka soo jeesteen dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre Maxamed. ku dhawaad 15 xubnood oo xalay taageersanaa madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa saaki waxa ay ka soo wada jeesteen garabkii madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. madaxweynihii la sheegay in xilka laga qaaday isagu xagee buu ku sugan yahay ilaa hadda? wuxuu ku sugan yahay madaxtooyadii rasmiga ahayd ee magaalada Jowhar. madaxweynaha la magacaabay isaguna Jowhar buu joogaa? madaxweynaha la magacaabay wuxuu ku sugan yahay xarunta gobolka iyadana madaxtooye kale gooni ayuu ku sugan yahay. madaxtooyada ayaa amaankeeda hadda waxaa gacanta ku hayaa tan Cusuble uu joogo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. tan Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay joogaanna waxaa gacanta hadda ku haya ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Jowhar. maxamed markaad soo koobtid xaaladda guud ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo waliba aragtida dadweynaha maxaad ku sifayn lahayd? xaaladda magaalada Hirshabeelle ama magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa ah mid aad u kacsan. shacabka ayaa isdhex tibaacaya buuq aad u fara badan maalinta kasii dambeysa. shacabkii oo su-aalooyin dhowr ah wariyaasha weydiinaya oo ay tahay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre maxay arrinkaani usoo faragashan lahayiin ama dowladda Hirshabeelle kama tirsana Soomaaliya ayay leeyihiin iyaga oo ka cabsi qaba labada madaxweyne meesha isku haya in maalmaha soo socda ama saacadooyinka soo socda shaqaaqooyin ay ka dhex dhalato. wata aad baad mahadsan tahay maxamed deeq alfa. daawadayaal waxaa kaasi ahaa wariyahayaga magaalada Jowhar maxamed deeq alfa oo si toos ah ugu waramay